kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal markasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a somalilan oo lagu qaaday weerar culus oo dhinaca internetka ah. maxay tahay sababta loo beegsaday baraha iyo websaydyada xogaha ee somalilan? yaa weeraray oo weerarka ku qaaday somalilan? sidoo kale barnaamijkeena xulashada waxaanu idinku haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca puntland iyo puntland oo xidhay saraakiil kala duwan oo taabacsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. taniyo jimcaale xaggee ayuu ku sugan yahay? ma tegey garowe mise weli laascaanood ayuu fadhiyaa? qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisala ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka oo inta badan aad ka daawataan waana tv fadlan daawaye haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo guuri janalka subscribe noo saar muuqaalka laygala oo sheer gare. aan ku bilownay wararka ka imaanaya dhinaca somalilan ayaa sheegaya in weerar culus oo dhinaca internetka lagu soo qaaday baraha kala duwan ee hay-adaha dowladda ee somalilan. weerarka ugu horeeya ayaa waxaa lagu qaaday barta websaytka ee dhinaca xogaha wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan iyadoo gebi ahaanba hadda hawada uu ka maqan yahay. sidoo kalena waxaa la sheegayaa in dhammaan xogtii ku jirtay websaytkaasi la tirtiray. ilaa iyo hadda somalilan kama aysan hadlin arrintan. sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday oo isagana baraha bulshada lasoo dhigayaa xogihiisa bangiga dhexe ee somalilan oo dhammaan dhaatadii iyo xogihii ku jiray websaytka bangiga dhexe ee somalilan isagana weerar culus uga kulmay. haddaba arrintani maxaa ay ka dhigan tahay? maxay somalilan uga dhigan tahay? yaase weerarkan ka dambeeya oo qaaday? inkastoo dadka qaar ay sheegayaan in weerarkan ay geysteen kooxaha xuutiyiinta taabacsan iiraan maadaama ay somalilan xiriir ay la samaysatay israa'iil. arrimahaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena gebi ahaantiiba aan ku kor istaagi doonaa iyadoo falanqayn gaar ah ku samayn doono bal arrimahani waxa ay mustaqbalka noqon karaan iyo weliba xaalku sida uu noqon karo. aniga iyo cabdijamaal oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa si toosa uga faalloonaya amuurahan iyo sida ay wax yihiin iyo weliba xaalku sida uu noqon karo. qaybta puntlandna waxaan kaga hadli doonaa iyadana qaybaha dambe ee barnaamijka. daawayaasha sharaftale waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inay la garayaan oo sheergayaan. weerarkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii somalilan ay xiriir dhinaca diblomaasiyadda ay la yeelatay dowladda israa'iil iyada oo xiriirkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo jiray sarana u qaaday runtiina magaalada qudus ee caasimadda falastiin ka furtay safaarad ay iyadu leedahay. hase ahaatee kooxda xuutiyiinta oo ku dhow dowladda iiraan ahna mid ka mida gacmaha ay ku dagaalanto dowladda iiraan ayaa waxaa la sheegayaa inay jabsadeen baraha kala duwan ee dhinaca internetka ee hay-adaha iyo institutionada somalilan. waxaa ugu horeysay wasaaradda arrimaha dibadda websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan iyada oo websitekaasi gebi ahaanba xogtii ku jirtay meesha laga saaray. sida oo kalena lasoo saaray sawirada afhayeenka xuutiyiinta sawiradiisa lagu xardhay. arrintaasi ayaa si weyn baraha bulshada u haysata waxaanad moodaa inay arrintani tahay barbilowga dagaal toosa oo ay wada galaan somalilan iyo xuutiyiinta. sida oo kale waxaa muuqata oo la jabsaday bartii website-ka ahayd ee uu lahaa bangiga dhexe ee somalilan isagoo isna xogtii oo dhan meesha laga saaray. runtii waa tallaabo nagu cusub oo inkasta oo dad badani ay ama dadka xogagaalka ay la socda xaaladaha ama amuuraha caalamka ay in badan ka digayeen somalilanna uga digayeen inaysan faragelin ama cilaaqaad aysan la yeelan maaragtay xasaradaha ka taagan bariga dhexe. waxaa ognahay bariga dhexe muddooyinka ugu dambeeyey dagaal weyn oo dhinac walba ah inuu ka jiray kaas oo ka bilaabmay ururka xamaas oo 23 october may ahayd 2023 weerar ku qaaday israa'iil kadibna israa'iil ay dagaal dheer ay wada galeen. sidoo kale waxaa ku xigay iiraan oo arrintaasi iyadana ku lug lahayd. hase ahaatee somalilan oo raadinaysa aqoonsi uu madax maray inay aqoonsi iyo ictiraaf ay hesho ayaa israa'iil madaxa la gashay 2025 bishii December ayay israa'iil sheegtay inay aqoonsatay somalilan iyadoo dana istiraatiijiyadeed oo ay ka leedahay oo kooxaha xuutiyiintu ay ugu horeeyaan iyo marinka baabul mandab oo muhiim u ah ganacsigeeda in ay ka ilaashato somalilan khaasatan dekeda berbera. arrintan ayaa noqonaysa arrintii ugu horeysay oo xuutiyiintu ay qaadaan. runtii waxayna noqonaysaa in hadda somalilan uu waa cusub u bariyey ayna ogaatay in ay xasaradii iyo weliba
dhibaatadii Israa'iil ay u soo jiiday inay hadda lugaha ay la gashay. waayahay axmed oo ma ka hadleen hay-adaha kala duwan ee loo dhacay websaydyadooda oo lagala wareegay daatadiina laga shubay ma ka hadleen arrintan Somaliland? maya ilaa iyo hadda wax warac oo rasmi ah oo ka soo baxay ma jiro dhinaca Somaliland oo arrinta ku saabsan. hase ahaatee barta X loo yaqaan horey loo dhiran jiray Twitter iyo baraha bulshada sida Facebook ayaa xogihii iyo waliba xogtii la jabsaday lagu baahinaya iyadoo aad looga hadlayo arrintan iyo dhibaatada ay Somaliland ay u keeni karto, taasi oo halis ku ah in maanta wixii ka dambeeya Somaliland institutionada maaliyadda, kuwa difaaca, kuwa kale oo ganacsiga intaba ay weerar la kulmi karaan dhinaca internetka ah, ayna dhici karto shirkado iyo waliba goobo in si toos ah loo damin karo matooradooda iyo maaragtay telefoonadooda iyo waynu garanay wasaaradda arrimaha dibadda iyo calaaqaadka dibadda ay la leedahay inay qoonsan karaan ururadan kale, laakiin bangiga Somaliland maxaa loo malaynayaa inay arrintan u saameysay? maalimo waxaa jiraan loogeyn oo la shaacin oo bangiga iyo bangiyo kale xiriir ka dhexeeyay. cabdijamal waa mahadsan tahay, waa su-aal weyn waaye runtii dee maadaama cilaaqaad uu dhex maray Israa'iil iyo Somaliland waxaa dhici karta in ay fiirinayaan xogo dhinaca maaliyadeed ah, maadaama ay baarayaan kolley baraha ay bartilmaameedsadeen oo xasaasiga ah ayay ku jirtaa. runtiina dawladuhu de waxyaabaha isku taageeraan dhinaca maaliyadda, dhinaca agabka iyo dhinac walba way suuragal in Israa'iil ay ka taageerto Somaliland. marka waxa weeyaan iyagu kolley muhiimadda iyaga u leeyahay de anigu hadda ma ogin, laakiin waxa weeyaan waa meel istiraatiiji oo muhiim ah in bangiga dhexe ee Somaliland la bartilmaameedsaday, wasaaradda arrimaha dibadda la bartilmaameedsaday. waxaanad moodaa de hadda kooxdani xogo ay wax ku dhisi karaan in ay raadinayaan xogo sireed oo sirdoon inay yihiin. kooxdan hadda sabsatayna waxaa la sheegayaa inay ka mid yihiin kooxaha Iran taabacsan inay yihiin oo fadhigoodu yahay dalka Iran. marka Somaliland iyo dadka Soomaaliyeedba anigu aan kala saaraynin waxaa u bilaabmay dawaa cusub iyo dagaalkii bariga dhexe oo usoo tallaabay geeska Africa. waayahay Somaliland marka xarumaheedan websaydyada lagala wareegay sawirada la soo saaray gacanteeda ama ku soo laabtay hadda intaa ognahay mise weli gacantooda uu ka maqan yahay oo waxay isticmaalayaan kooxihii kala wareegay? ilaa iyo hadda gacantooda waa uu ka maqan yahay oo gacan kuma hayaan dee maamulkoodana weli lama aysan soo ceshan. markii iyagu ay ka hadlaan baanan ogaan doonaayo xog faahfaahsan oo sidaas hadda lagama hayo. laakiin waxaa la sheegayaa in maaragtay Somaliland dhexdeeda isku dhexyaac badan uu ka jiro, arrintani ay warwar badan ay ku abuurtay dad badan oo mas'uuliyiin oo ka tirsan maamulka dawladda hadda uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Ciro. runtiina waxaad arkaysay Cabdiraxmaan Ciro oo xiriirka Israa'iil ku faanaya shalay tomar u hadlayay. marka arrintani kolley waa tallaabo cusub oonan la ogeyn waxa ka dambeyn doona, hase ahaatee waxaan ogaan doonaa bal xaalkeeda meesha uu noqdo iyo waxa ka dambeeyaan eegi doonaa. waayahay haddaan Somaliland halkaas uga tagna Axmedow, deegaanadii Puntland xaaladoodu faraha ayay ka baxday. wadaweedo madaxweyne Saciid Deni ayaa hadlay oo ka hadlay arrimaha ka jira deegaanka. waxaana xogtaan ku helaynaa magaalada Garowe inay jiraan saraakiil la qabtay oo iyagu diiwaangelinaya ciidamada. xagee buu marayaa xaalka Garowe? saacadihii lasoo dhaafay garoonka duleedka magaalada Laascaanood waxaa lagu qabtay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, qaasatan ciidanka Danab, kuwaasi oo ka mid ahaa ciidamadii saraakiishii diiwaangelinta ka waday deegaanada Puntland ee ciidamada cusub qorayay. raggaasi mid ka mid ah ciidamada Puntland baa gacanta ku haya, midna wuu baxsaday. sidoo kale waxaa la qabtay laba sarkaal oo iyagana gaari Probox watay oo ka soo baxay magaalada Laascaanood oo ku socday magaalada Garowe. taliye Jimcaale oo ka mid ah taliyaha loo magacaabay guutada konton afraad ee ciidamada xoogga dalka Puntland, isagana wuxuu ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaa la sheegayaa in odayaasha dhaqanka ay halkaasi ay ugu tageen kulanna ay ka wada qaateen
hase ahaatee laba fariimood inuu soo diray oo uu sheegay in uu laba masalo mid uu ku tagayo Garowe waa mid koowaad inuu si nabada ku tago wadada loo furo oo Siciidanay iyo ciidamadiisa wadada ay u furaan oo si sharaf ah uu ku tago kadib markuu Garowe tagana Garowe uu ka hadlo taa hadii la yeeli waayo wuxuu yiri waxaan ku tagayaa Garowe xabad iyo tamartayda ma garad rag badan oo ciidamo badan oo kala duwan oo ku sugan waqooyi bari Soomaaliya meelo kala duwan jooga Puntland jooga maamulkan la yiraahdo waqooyi bari jooga iyo ciidamo kale oo mudug joogana waxa la sheegayaa isaga taabacsan yihiin oo ragka hadda nin ciidan badan ay maaragtay taageersan yihiin inuu yahay marka xaaladdu ay adag tahay hase ahaatee odayaasha dhaqanka oo mar walba door weyn looga bartay inay dhexdhexaadiyaan arrimaha kale si nabadana ku dhameeyaan ayaa wali arrinta gacanta ku haya waxaana la eegi doonaa in maaragtay bal halka ay xaaladdu ku dambayso laakiin xaaladdu wali waa ay taagan tahay lamana xalin labada dhinacna waxaad moodaa hadda inay qabasho u bilaabatay oo saraakiil ay Puntland durba bilowday in saraakiisha taabacsan Jimcaale Xasan in ay maaragtay ay target garaysanayaan oo ay xirayaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay ka hadlayay munaasabada kooda Luuliyo waxa uu sheegay in Puntland sinaba aysan u ogolaanaynin askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka taabacsan inuu ka shaqeeyo Puntland taasina ay tahay arrin qalad ah oo aan sinaba ku suura galaynin haddii ay arkaana ay tallaabo sharci ah waafaqsan ay ka qaadayaan Axmed waxaan ku weydiinayaa su'aalahan ilaa hadda cidda hadlaysa oo sheegaysa inay weerar tahay ama ay duulaan tahay waa maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowr meelood ka hadlaya warkii ka sheegaya wax wara oo laga haayo taliye Jimcaale ma jirto inta la og yahay ciidamada la go'doomiyay sida Ligle oo kale iyo xarumo dhowr ay ku jireen waa ciidankii Jimcaale ka amar qaadanayay ma u moodaa colaadda Puntland inuu Siciid Dani isagu abaabulayo oo dhinaciisa ay ka socotay aysan jirin cid kale oo colaad ka hadlaysa waa wax sax waaye laakiin mid markii laga fiiriyo deegaanada Puntland waxay ahaayeen deegaano nabad ah runtii meelaha Soomaaliya waxa xasiloona way ahaayeen hadda marka maxaa keenay oo maaragtay Puntland ka keenay mas'uuliyiinteeda hadda caradan iyo colaadan inay ka hadlaan waa arrin meesha ku jirta oo taalo waay marka deegaankaaga aad joogto oo adiga oo madaxweyne ah oo madaxweyne Puntland ah ciidamo aadan ogeyn iyo dad aadan ogeyn laga qorayo gudaha iyo deegaanada Puntland adigana aan waxba ka weydiinin sababtoo dawladda federaalka waxay xaq u leedahay haddii ay Puntland wax ka qorayso inay nidaamka ka jira dawladnimada ee ka jira in ay la xiriirto oo wax la isla ogol yahay oo ciidanka la qorayo uu noqdo laakiin hadduu noqdo ciidan si dhuumasho ah si maaragtay tuugaalaysi lagu qoranayo taasi macna kale ay yeelanaysaa laakiin dastuurka dalka u yaala Axmedow wuxuu ogol yahay in ay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha dawladdu ay ciidamada qoran karaan aslan ma jirto meel ay ruqso ugu haystaan maamul goboleedyadu inay ciidamada kula baratamaan dawladda dhexe oo wasaaradda gaashaandhigga soo tahay malahan ayaga marka maamul goboleedyada ay u moodaa inay soo dhaafayaan xadkooda soo lama oran karo maya ma la oran karo malafka ciidamada wali malaf laga heshiiyey ma aha wadankan waa wadan burbura dawladnimadiisana la isku haysto marka malafka ciidamada dawladda federaalka sideedaba ay yeelanayso iyo nooc noqonayo waa mid hadda wali aan la isla fahansanayn waxaan waxyaabaha la diidayana waxaa ka mid ah in dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ay siyaasadeynayso maamuladii ay ku qabsanayso iyadoo ay ku bedelayso xoog iyo tujuub iyadoo ay ka wado waa ogtahay galmudug hadda wixii ka dhacay iyadoo oo madaxweyne fadhiyo in la yiri ma tartami kartid ninka anaga xubnaha tartamay oo doorashada laga reebay oo meel public uu ka sheegay inuu ka tanaasulay doorashada uu ka haray waa ogtahay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa ogtahay Raaskambooni wixii ka yimid marka Puntland meesha kaliya oo waxay ahayd kan nabad qabta ama aan wax dhibaato ah arrintaasi aysan maaragtay dhinaca federaalka ka soo gaareen laakiin haddana waxaad moodaa inay hadda la siman tahay maamulada kale oo
si qasaba aad moodid in ciidamo lagu ciidamaynayo si iyada saameyn loogu yeesho hoggaankeeda iyo maaragtay sanadnahay Puntland way ka dugneed meelaha kale oo amnigooda aad u fiicnaa waxaa lagu tilmaamaa meelaha horumarka badan oo ka jiray muddooyinka ugu dambeeyay arrintan isjiidka ciidamada iyo saraakiisha iyo maamulka sare maxay saameyn ku yeelan kartaa horumarkii ay ku talaabsanaysay Puntland waxay saameyn ku yeelan kartaa deegaanka haddii waxa ugu horeeya oo horumar ka bilaabmo waa nabadda laakiin haddaan nabad jirin horumar ma imaado runtiina deganaanshaha wax walba number 1 u ah Puntland tan iyo 1991 markii dhacday dawladii dhexe 92 deegaan nabada iyadoo Somaliland ba ahaayeen laakiin hadda waxaad moodaa in qalalaasa laga abuurayo oo dad siyaasiyiin oo dan leh ay hadda Puntland maaragtay ay karkarinayaan midda kale Puntland waxaa ka jira xisbiyo iyo ururo siyaasadeed ka jira qofkii doonaya siciidanay inuu kursiga ka qaato waxay ahayd inuu kula tartamo golayaasha kala duwan ee Puntland laakiin dambeyntii Axmedow xabad la yiraahdo waa la isku afgambinayaa meesha kuma jirin ugu dambeyntii haddaad eegto mucaaradka Puntland hoggaanka sare Puntland saraakiishii iyo in ayagu isku mashquulsan yihiin ayna u muuqdaan inay maanta la mid noqonayaan goobihii kale colaadada ay ka jirtay danta Puntland maanta maxay ku jirtaa danta Puntland waxay ku jirtaa wixii ummaddu ay ku heshiisay in ay reer Puntland ay ku heshiiyeen inay wada ilaaliyaan oo ugu horeyso nabadgelyada oo ugu horeyso nidaamka dawladeed u dhisan waxa weeyaan sida Cabdullaahi Dani waa markii labaad hadda madaxweyne ka noqdo waxa weeyaan Puntland waxa ognahay meelaha ugu daahfuran dhinaca doorashooyinka inay ka mid tahay laakiin tii dambeysay isaga ayaa muquunsaday oo shaxda saamaystay ma lama oran karo maadaama madaxweyne fadhiyay uu yahay galaangal uu maaragtay uu samaystay waa dhihi karnaa laakiin waxa ku hubaa 100% doorashooyinka kale marka laga yimaado doorashada federaalka doorashada dowlad goboleedyada doorashada ugu nadiifsan oo si sax ah loogu tartamo inay tahay hal maalin laguma darsado waxay kaga wanaagsan tahay dowlad goboleedyada hadda muddo dhaafka iska joogo lama mid ah Puntland marka waxaa la rabaa inay ilaaliyaan dowladnimadooda nidaamkooda iyo waliba nabadooda inay ilaashtaan taasa ummadda wadan u ah laakiin wax dan shakhsi ah oo qof shakhsi ah ama xamar ha joogo ama mataqaana garow ha jooge in laga shaqeeyo ma qabil laakiin danta caamka in laga shaqeeyo